magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland maanta waxa ku wajahan taliyaha ciidanka AMISOM Tikabo Yelmo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya kaas oo la sheegay in uu tagayo sidii uu u furdaamin lahaa ciidamo ka socda dalka Itoobiya oo shalay loo diiday inay tagaan magaalada Kismaayo ciidamada oo la sheegay inay ka soo baxeen gudaha dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay tiradoodu gaarayso 98 askari isla markaana ay saaran yihiin diyaarad waxaana shalay loo diiday inay ka soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo iyadoo hor istaagooda ay qayb ka ahaayeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee Kismaayo taliyaha ciidanka AMISOM Tikabo Yelmo ayaa la sheegay inuu shalay telefoonka kula hadlay saraakiisha iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland isla markaana uu kala hadlay sidii ciidamadoodu ay u tagi lahaayeen magaalada Kismaayo si ay u xoojiyaan tirada ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Kismaayo xaaladda ayaa u muuqanaysa mid iska soo horjeeda iyadoona dawladda Kenya ciidamadeedu ay garab siinayaan maamulka Jubbaland waxaana muuqata in ciidamada Itoobiya loo diidan yahay inay tagaan magaalada Kismaayo si ay qayb kaga noqdaan ciidamada AMISOM ee ku sugan Kismaayo warar soo baxaya ayaa sheegaya in shalayto galinkii dambe ay dhici gaartay iskoorimaad u dhaxeeya ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland oo isku dhinaca iyo kuwa Itoobiya kadib markii ciidamada Itoobiya ee ku sugan Kismaayo ay maqleen in loo diiday diyaarad siday ciidamadooda inay ka soo degto garoonka diyaaradaha ee Kismaayo taliyaha ciidanka AMISOM Tikabo Yelmo oo ka soo jeeda asal ahaan Itoobiya ayaa lagu wadaa inuu maanta tago Kismaayo waxaana wada hadallo uu la yeelan doonaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam si uu kaga hadlo ciidamada Itoobiya ee la doonayo in la geeyo magaalada Kismaayo ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbaland waxa ay galaangal xoogan ku leeyihiin siyaasadda maamulka Jubbaland waxaana muuqanaysa inay u diidan yihiin ciidamo kale oo xoog leh oo AMISOM in la geeyo magaalada Kismaayo hardanka labada dhinac waxa ay si akiraysaa xaaladda siyaasadeed iyadoona ciidamada ammaanka Jubbaland iyo kuwa Kenya ay dhinac u riixayaan kuwa Itoobiya ee ku sugan magaalada Kismaayo taliyaha ciidamada AMISOM Tikabo Yelmo waxa uu ku adkeysanayaa ciidamada Itoobiya ee sida gaarka u tababaran in la geeyo magaalada Kismaayo si ay qayb kaga noqdaan sugista ammaanka inta ay dhacayso doorashada Jubbaland waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyay ee doorashada Jubbaland iyadoona madaxweynaha hadda talada haya uu doonayo inuu mar kale soo noqdo dawladda Soomaaliya wali ma aysan ka hadlin isriixriixa ka taagan magaalada Kismaayo ee dhinaca amniga ah iyadoona ciidamada AMISOM ay u muuqanayso inay ku kala qaybsan yihiin sugidda ammaanka waxaana dawladda Kenya ay aad u danaynaysaa soo noqoshada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam